qalabkan yar waa mid ka saboolnimada ka saaray jasiiradda Taiwan oo dhacda waqooyi galbeed meel kaga aadan badweynta Pacifiga darisna la ah dalweynaha Shiinaha inta badan lagu batiriyo waa qalabka keenay in dadka reer Taiwan uu dakhligooda shakhsiga ah ee sanadlaha ay ka yimaado $3,000 ilaa $34,000 muddo 35 sano gudaheed ah GDP-ga ama wax soo saarka guud ee dalkuna ka soo guuro 66 bilyan ilaa 1.5 trilyan oo dollar isla muddadaas waa midka keenay in jasiiraddan yar ee aan aqoonsiga wadan haysan ay uga xishoodaan quwadaha dunida ku loolama maadaama ay lafdhabar u tahay wax soo saarkooda teknoolojiga Taiwan oo ah jasiirad ka tirsan dalweynaha Shiinaha iskeedna madax bannaani u sheegatay waa dhul ku fadhiya 36,000 kilomitir square oo ah gobolka mudug kala barkiis ayna ku nool yihiin 23 milyan iyo bar qof waxaan isla eegaynaa faa'iidada adduunka uu u leeyahay qalabkan yar ee la yiraahdo semiconductor microchipka chipkani wuxuu noqon karaa maskaxda ay ku shaqeeyaan qalabka elektaroonikada ah sida CPU-da oo ah wadnaha shaygaas chipka memoriyada grafikaadiyada iyo kuwa kale badan tusaale computer walba ama mobile walba inta uu CPU ka weyn yahay midka kale ayuu ka qaalisan yahay wuuna ka xawaara dheereeyaa marka ay noqoto inay hawl qabtaan telefoonka iPhone-ka oo ka kooban 1500 oo waxyaalood oo la isku keenay marka la kala dhigdhigo waxaanu arkaynaa in qaybta ugu muhiimsan ee ah maskaxda memoriga kaamirooyinka iyo bluetooth-ku ay yihiin waxyaalo lagu sameeyay Taiwan halka Ameerikaanka uu ku magacaaban yahay ay soo saaraan kaliya shaashada protection-ka ah iyo marmar ay laftooda soo saaraan CPU-yada bluetooth-ka iyo Wi-Fi-ga walow aysan awoodin inay xaddiga loo baahan yahay sameeyaan haddii aysan Taiwan jooginna iPhone-adu waxay noqon lahaayeen boombala uu ku qoran yahay Made in America xagga gaadiidkana maskaxda uu ku soconayo gaariga Tesla ee elektaroonikada ah waxa lagu sameeyaa wadankan waxaan ka harayn diyaaradaha dheereeya kuwa aan duuliyaha lahayn kuwa bani aadamka wada iyo robodyadaba maskaxda kala wadaa waa microchipkan yar ee semiconductor-ka ah laguna farsameeyo jasiiraddan Taiwan chipka caalamka oo dhan laga isticmaalo ee wadnaha ama maskaxda u ah qalabka elektaroonikada ahna kala barkiis ama 50% waxa lagu sameeyaa halkan waxa isweydiinaynaa marka chipkan muxuu ka samaysan yahay asalkiisii hore ama dabiici ahaanba marka aad fiirisid waxa uu ka samaysan yahay semiconductor microchipku waa maadada silicoonka oo ah carro ama ciid aan markii hore wax qiimo ah lahayn silicoontu marka hore waxay ku jirtaa carrada iyadoo ah qaab silicon dioxide ah waxaana weheliyo kimikaalo kale laakiin silicon dioxide-ku waa 50% ilaa 80 si marka looga soo saaro silicoontii carrada waxa lagu shubaa carradii haamo waaweyn iyadoo dib looga daro carbon deedna waxa isqabsada oxygen-tii silicoonta ku lamaansanayd iyo carbon-kii waxayna uga baxaan haamaha qiic ahaan oo waxa soo hara silicoontii oo qura sida aan hadda u sheegnay waa qaab fudud oo aan fahamka ugu talagalnay laakiin marka ay sheekadu noqoto in xaddi badan oo ganacsi nadiifna ah la soo saaro intaa way ka dheeraan kartaa waxayna u baahnaan kartaa in processor kale la marsiiyo si looga hufo waxyaalaha ku haray marka silicoontii loo bedelayo chipkana waa meesha u baahan aqoon-yahanka xirfadda leh warshadaha qaangaarka ah iyo balaayiinta dollar sababtoo ah waxa silicoonta dhexdeeda laga samaynayaa isku gudbiyayaal halkii mitir ka yar 1 bilyan oo jeer وقال كأنه أنت سكويك جاي والسلام عليكم.